السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي الرير أو مانتا عن صور كيبا وحربا ومدينة الصومالية إننا كفايدي سنو مانتا وحان كلها ديجان كمقال هلسين كقابلنا مدحوينها ودنك أيسلان وحانا يجي حجبيسي مثل لوسو متقانا حلفتاس لوسو قاداس لوسو أبابولي لسوسو دبريدي يا النظام كيكو سعودي iyo waxaan soo xasuustay xalfadiina Soomaalida haday soo dhaweyn ahaan lahayd hadii xalfad kala ahaan lahaydba sidaan u sameysano marka taas baan rabaa waxiisa insha Allah inaan ka hadlo oo dadkeena Soomaaliyeed balaan u bidhaamiyo in mataqaana waxyaabaha dad kale inooga fiican yihiin bal inaan isku dayno in mataqaana aan ka koobiyano aan ka qaadano sideen la socono waxaynu ka dhareegsanahay dadkeena qurbaha jooga iyo dadka mataqaana gudaha joogaba ee madaxa joogto ama aysan joogin sideen wax u sameysano qaabkii waxaan u sameysano marka taas hay dambayso waxaan rabaa bal maanta wixii dhacay wixii aan ka faa'iidi karno in mataqaana aan marka koowaad ku hormariyo marka labaadna mataqaana aan ka hadlo xalfadaha Soomaalida sida loo dhigay say ku haboon tahay maanta waxa oo taariikhda ku beegan tahay 6 bisha tobnaad 2016 waxaan magaalada Helsinki waliba xarunta looga taliyo magaalada Helsinki ee la yiraahdo Kaupunkitalo maanta waxaan casuumad ama qado u sameynay madaxweynaha wadanka Iceland marka waxay cajibisay oo aad ii soo jiidatay qadadaas iyo xalfadaas sida loo soo agaasimiyay nidaamkay ku socotay run ahaantiina markaan soo xasuustay xalfadeeni hadii ma ahaan wadankii ahaan lahayd halkan hadii ahaan lahaydba aad bay mataqaana iga cajibisay sidaas awgeedna fiidiyoga waxa uu tala galay arimahaas saacada qadadu waxay ahayd 12:35 daqiiqo laakiin waxa la isbilamiyay in koobta la yimaado oo qof walba kursigiisa uu taagnaado 12:20 daqiiqo waxa la soo hormaray 15 daqiiqo marka dhaqanka wadankan u yaala mataqaana madaxda saa u sareysa lagu soo dhaweeyaa waxay tahay inaan la fariisanin intuu mataqaana ay imanayso madaxda imanayso sababtoo ma aha xalfadii la sugay 2 saac 3 saac in qofka madaxda yimaado waqtigu aanu qofku imanaya waqtigu aanu ku baxaya marka 15 daqiiqan taagneed oo la iska sheekaysanayay goobta mataqaana loogu talagalay qadada markuu soo galay madaxweynaha wadanka Iceland oo uu heliyay madaxweynaha wadanka Finland sida lagu soo dhaweeyay muusigii loo garaacay sidii ku fariisteen sidii markii ku fariisteen marka waxaan u dalnayo hadalladaas mataqaana rabaa aan u durxoolaya inuu sheegay waxay tahay in maxalfadaas sidaas u weyneed oo dad aad u badan ay ka soo qayb galeen inay hadleen 2 qof kaliya labada qof ee hadlay xalfadaas ee ay quseysay sida waxay la hadashay kaliya golaha deegaanka ay mahadnaqday si soo dhaweeyay gudoomiyahooda maysan gelin wax kale sheekale maysan gelin sidii mataqaana aan ku qadeynay si tartiib ku qadeynay dad mataqaana professional oo nidaamka qadada mataqaana waytara aad u fiican mataqaana meeshii mataqaana qadada noogu keeneen sidii ku qadeynay waxay ka bacdina way baxeen marka nidaamkii u dhaceysay waxay ahayd madaxweynaha dadku la mid aha madaxtooyadana lama joogin sida awoodid wax madaxweynaha Soomaali markaan joogno qof kasta madaxweynaha meesha ka soo qayb galo waxa mataqaana waxa servant u ah ama u shaqeeya dadka meesha joogo dhan madaxweynaha soo ina amaanaan waa mataqaana madaxweyne kaliya ma aha ama ra'iisul wasaare haduu joogo haduu meesha wasiir uu sareeyo adi qofka meesha uu sareeyaa markasta mataqaana waqtiga iyo juhdiga wax oo dhan la geliya beenini sheegi maayo maanta waxaan soo arkay hadaad maqashid nidaam iyo system hadaad maqashid waa sidaas madaxweynaha meeshiisu fadhiyay martibu wuxuu ku ahaa xaruntan wax kale iska daayay hadal lama siinin magaciisa lama soo hadal qaadin sababtoo system ku yaqaana sabab kama xanaaqayo laakiin systemka wadanka looga dhaqmo waxay tahay in wax kasta mataqaana meesha la tagay in qofkaas meeshaas mas'uulka inuu meeshaas hadlo waxa marti madaxweynuhu wuxuu wehelinayay madaxweynahan kale martida oo meesha u yimi
hadal kuma lahayn, qof kaloo hadlay ma jiro, system iyo nidaamkaasi ku dhacday. marka waxay cajibiyo aan soo xasuusta xalfadihina saan ku dhigano sidoo waqtigu inooga lumo marka koowaad. marka labaad qof kasta wuxuu rabaa inuu xalfadihina waa aragtay, qof kasta wuxuu rabaa inuu hadlo. haddii dadku aysan wada hadlin meesha dhibaata ka dhacaysa, dagaal baa ka dhacaya, waxaa imanaya mataqaanaa in cuqdad la isku qaado. maxaa hebel haduu siin weyday qof kastana wuxuu rabaa markuu hadlo marka koowaad salaanta inuu ku dhumiyo ugu yaraan 5 ama 10 daqiiqo. dadka meesha joogo qof kasta taytalkiisa, kii gudoomiye kasoo ahaan jiray tuulo waqtiguu hayay mataqaanaa tuuladu kasoo ahaa, waxaa laga yaabaa taariikh awowgiisa inuu galo uu ka sheekeeyo. waxaas meesha looma iman. nidaam iyo shuruuc waxaa loo yimi mataqaanaa programka wax quseeya. marka koowaad dadkeena waxaa quman xalfadaheena marka hadda tusaale ahaan oo kale kana qurbaha ku dhigano dad ajaanib ama dad cadaan oo kale iyo waxaas mataqaanaa ma soo casuumi karno. waxaan u soo casuumin karin waxay tahay de waxaa raba inay hadlaan dadka meesha xalfadda isugu yimi intooda badan inay hadlaan ay rabaan. de waxaasna mataqaanaa waa protocol xumo, waa nidaam xumo. marka waxaa haboon dadka kale mataqaanaa dhaqamada inooga fiican yihiin, tusaale ahaan oo kale kan xalfadaha loo dhigo kale iyo waxyaabaha loo abaabulo oo kale inaan mataqaanaa ka koobiyeyno oo aan ka qaadano. marka maanta aad baa usoo cajibay. insha allah taariikhdana waxaan rabaa haddii wax aniga aan qaabinayo oo aan ku lug leeyahay in nidaamkaas aan ku bilaabo. waa ogsoonahay inaan mataqaanaa dad badan aan kala dhimanayno haddii mataqaanaa ay raado hebel keliya hadlaya xalfadda inta labada qof keliya hadlaya ama 4 qof hadlaysa haddaan yiraahdo dad badan aan kala dhimanayna. laakiin waxaa loo baahan yahay dad waxaan heer keliya oo bilaaba. marka insha allah intaas baa mataqaanaa aanay